mid ka mid ah culimada Carabeed oo maalmo ka hor boqolaal qof dalka Sacuudiga kula hadlayay ayaa waxa uu soo hadal qaaday dhibaatooyinka ka jira dalal ay Soomaaliya ka mid tahay waxaana uu yiri الصومال قبل 100 سنة كانت أغنى دولة في أفريقيا. قبل 100 سنة كان الصومال في الفترة ذيك يتصدقون على أهل الجزيرة العربية. Soomaaliya boqol sano ka hor waxay ahayd dawladda ugu hodansan qaaradda Afrika. xilligaas Soomaaliya waxay ahayd mid wax ku dhaqda jasiiradaha Carabta ilaa ay gaartay waan ka xumahay baahi ayaa ka jirtay magaalada Madiina cunadiina waa ay ka idlaatay yaa quudiyay Madiina dad Soomaaliyeed waxaana ay inoo keeneen kaalmo ay ugu tala galeen reer Madiina kana keeneen Soomaaliya waxaana ku qornaa kaalmo walaalaha ganacsatada Soomaaliyeed kuna socota ahlul Madiina munawwara intaas oo dahab ah intaas oo ari ah iyo intaas oo cunto ah intaasi oo dhan waxay ka imaadeen Soomaaliya Madiina ayayna keeneen maantana Soomaaliya ayaa u baahan dadka reer Madiinana كذا من الطعام كل ذلك جاء من الصومال إلى المدينة واليوم الصومال تحتاج وأهل المدينة الحمد لله. الصومال سبب مجاعتهم جاءت شركة بريطانية تشتغل في الجلود فكانوا يذبحون الغنم ويرمون اللحم ويبيعون الجلد. Soomaaliya sababta baahida u keentay waxa u tagtay shirkad Britain ka socota oo ka shaqeysa maqaarka xoolaha waxay ahaayeen kuwa bireeya ariga hilibka tuura maqaarkana iibsada waxa kale oo jirta in qof doonaya in uu subax quraacdo uu bireeyo neef ari ah kala baxo beerka inta kalena uu tuuro si uu beerka ugu quraacdo عشان يفطر بالكبدة يوميا جدي يرمى لحمه وتؤخذ الكبدة فقط. وانظروا النتائج عندما تشكر النعمة تدوم. بل ايغا نتيجة marka aad rabbi uga mahad celiso nimcada adduunyada ayaa lagu kordhiyaa markaas aad nimcada ku kufriso alle ayaa maalka ka qaada waxaadna u baahanaysaa halkii xabbo ee aad horay u tuurtay. عندما تكفر بالنعمة يأخذ الله منك الدنيا وتجوع وتحتاج للحبة التي كنت ترمي.